إيران oo duqayntii ugu badnayd Israa'iil la beegsatay saacadihii la soo dhaafay iyo warbaahinta Israa'iil oo war la yaab la qorayso arrintaa ku saabsan. Xubinta koowaad ee barnaamijka ayaynu ugu tegi doonaa haddii aan la yiraahdo. Dhanka kalena daawadayaal, dowladda dalka Iiraan ayaa gebi ahaanba beenisay war jariirada New York Times ay qortay oo markaa sheegayay Iiraan iyo CIA-du inay si hoosa wada xaajood ay ugu socdaan. qoraalkeeda ka soo baxay warbixintaas ayaan halkan idinkaga akhrin doonaa haddii aan la yiraahdo. Sida oo kalena Abu Dhabi ayay haatan weerar ku wadaan ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan. Waxaa daba daawadayaal aynu ku bilownay marka hore warbixintan ay qortay jariirada Tasniim ee ka soo baxda dalkaas Iiraan oo markaas soo xiganaysa sida halkan idinkaga muuqataba warbaahinta Israa'iil ayaa warkan qortay in yar ka hor. Maxay haddaba jariiradu leedahay? Waxa ay sheegtay jariiradu markaas in laga dareemayo gudaha dhulka la haysta ee Falastiin, waa sida jariiradu hadalka ay u dhigtay garo qaybteeda u koreysa ay markaa leedahay waxaa laga dareemayaa gudaha dhulka la haysta ee Falastiin weeraro cusub oo markaa dowladda dalka Iiraan ay qaaday. halkaan hoose haddii aad u soo degatid sawirkaas hoostiisa ah waxaad arkaysaa isbitaal ku yaala bartamaha Israa'iil inay markaas uu overcrowded noqday ama dadkii meel la kala geeyo la waaye dhaawac ahaa. waa sida jariiradu hadalka ay u dhigteen isla mar ahaantaasna la arkayey buuq iyo qalalaasa halkaa ka socda qaybta gurmadka degdega ee isbitaalka ee emergencyga loo yaqaano habeenkii xalay ahaa ee tegey. isla mar ahaantaasna Iiraan ay la beegsatay ballistic missiles kuwaas oo markaas ay la beegsatay Tel Aviv, Jafar iyo weliba Ben Gurion International Airport according to Israeli media reports ayay jariiradu tiri. So bartamaha Israa'iil, Jafar iyo aeroboortka oo wadnihii Israa'iila ee Ben Gurion ayay Iiraan bartilmaameysatay ayuu yiri sida warbaahinta Israa'iiliyiintu ay qorayso. hoos u soo soco. waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay sidoo kale miidiyaha Israa'iil inuu qorayo Iiraan gantaaladeedii in ay markaas Ben Gurion aeroboortka ay haleeleen. waa mar kale ay ku soo celiyeen channelka 12 ee ka soo baxay Israa'iil ayaa isaga laftigiisu sheegay qaraxyo waaweyn in laga maqlayo isdaba jooga Tel Aviv. isla mar ahaantaasna guryo meesha ku yaala ay markaas qaraxaas uu burburiyey si argagaxlana markaas ay u ruxeen guryaha iyo dadku meesha ay markaa ku sugnaadeen. warbixintan ayaa waxaa qoraysa warbaahinta markaas Tasniim News Agency ee Iiraan laga leeyahay. kuwa luqadda Hebrew ku qoraya ayaga laftigooda ay soo xiganayaan. balse haddii aynu Iiraan wax yar la sii joogno oo aan idinla wadaago arrin kale oo muhiimadeeda iskale oo ayada laftigooda ay Iiraan ka warbixisay ayay waxa ay sheegtay warbixintan ayay Iiraan qortay ay leedahay gebi ahaanba jariirada Iiraan ka soo baxda ay qortay gebi ahaanba inay dowladda dalka Iiraan ay beenisay warka markaas Times ay qortay oo ku saabsan in markaas dowladda dalka Iiraan hadda ay u dhaga nugushahay in ay markaas la fariisato oo Maraykanka la fariisto wada xaajood ay dhex maraan ayaga iyo markaas sirdoonka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ee CIA-da. arrintaas ayay Iiraan waxay ku tilmaantay total false, wax aan sal iyo raad lahayn iyo markaa cantara baqash ayay ku tilmaantay. horeyna wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay in aysan marnaba la fariisanaynin Maraykanka, wax laga wada hadlaana aysan jirinin. 2 jeer oo si niyad samina aan u hor fariisanay ayuu yiri. 2dii jeerba miiskii wada xaajoodka ayay ayagii Israa'iil ay duqeeyeen. marka lama aamini karo ayuu leeyahay, lamana fariisanayno. kaas waxa uu ahaa warbaahintaas ayay ahayd markaas Iiraan laga leeyahay. maxaa kale oo cusub oo haatan taagan? warbaahinta Israa'iil laftigeeda ayaa haatan warkan qoraysa aad arkaysaan markaas 39 daqiiqo ka hor soo baxay oo ku saabsan markaas in dowladda dalka Iiraan ilaaladeeda kacaanku ay sheegtay in ay ciidamada Maraykanka ay ku sugayaan gacanka Hormuz
arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay dowladda dalka iiraan sheegtay, dowladda dalka maraykanku ay sheegtay gaar ahaan madaxweynaheedu inuu yiri maraakiibteena dagaalka ayaa maraakiibta shidaalka qaada galbinaysa oo annaga ayaa markaas xaqiijinayna amnigooda ee maraakiibtu ay mid soo dhaqaaqa ilaa ay haatan haba yaraatee ma jiro. iiraan waxay tiri halkaas ayaa loo ballana, ciddii laga waayaa ayada hawlu taallo weeye. marka iiraan waxaa muuqata inay markaa doonayso inay halkaa ku sugaysa ayna u aragto in ay fursad haysato ay markaa halkaa dagaal iyo dagaalkeeda ay kasii wado. waaya وهاجي إن أكل هذه داود هذا ما أينو أجنو حلقة كره واحد أركيس أنا همين كي حالي تاهين إسرائيل إن لقى حنين والدخيمة إزدم جوجا أي إيران كود يصير جنود دا إسرائيل كسر بعضها أي شيء يصدق دقيقة كره هالكم كره دركي كفتان وإلى ذا مركز همين كي حالي تاها ورا أي مركز إسرائيل اللي هو هيسن إن إيران هو هيسي أيقو برطمان إسرائيل بيكسر إن أكلنا إسرائيل لفتي هذا أيا قادي extensive strikes on the regime. إيران حبيبكي حلا يدنا وعلى الدقيقي مركا لبضع لنعبة وحبلا يسكونا حالين اللي يسمقرين صغري لحالي سميري وايح صغري لحالي أيان يسميري وحانا موقتا إيران قنتا لذي إن أي مركز أي جاريان وذها إسرائيل أيضا دفاع إركا aadka u heer sareeya sheegatay inay haysato haddana la sheegay inay haysato haddana ay ka duusayaan gantaaladan iiraan waxaana la isweydiinayaa iiraan waxay haysataa waa maxay. laakiin markay timaado hawada sare diyaaradaha Israa'iil iyo Maraykanka ayaa iyaguna weeraro lixaad la geysanaya. goobtan holac uu ka baxayo waa Dubai weeye oo haatan Iiraan ay markaa duqeyn la beegsanayso xarumo ay sheegtay inay dowladda dalka Maraykanku ay leedahay. khiyaarta sharaftii kalaamada meel kastoo adduunyada ka joogtaa waa soo dhaweynaa. sidoo kalena IDF ayaa sheegatay in ay markaas Khomeini bunker ay markaa digada ka dhigtay iyo goob markaas ay ku shirayeen top brass militariga dowladda dalka Iiraan. وهاجي دبي خياري هدي أنا أنت كم معلومة أنه ورك وجود بي الجزيرة حلقة أنا قريسو وحال اسمه ذا ويدير يا مركو هراء حوتيينتي حاجة أي كدب بي حوتيينتي waxay daawanayaan Iiraan oo dagaal khalaar ku jirta hore way soo galeen dagaalka weyn ogeyn Falastiiniyiinta markay garab siinayeen hatta iyo jac lagama hayo. الجزيرة ayaa maqaal dheer ka qortay waxaana maqaalkaas faaladiisa nuxurkiisa iyadoo ka mid ah dan la wadaago waxaa lagu sheegay in ay xuutiyiintu sheegeen inay sugayaan Iiraan markaas qayladhaan uga timaada oo hadday Iiraan tiraahdo gala dagaalka xuutiyiintu waa soo dhex istaagayaan taas oo sababi karta markaas in ay albaabada isugu dhufato baabul mandab dhinaca kalena Iiraan baa fadhida oo baabul mandab wixii ka baxaa Suez Canal ayay galaan Suez Canal wixii ka baxaana Yurub ayay soo aadaan dhinaca kale wixii aadaan Hormuz ka baxaana waxay aadaan dhinaca Asia ayay aadaan. sidaas awgeed labada dhinac oo xirma caalamka shidaalkiisii ayaa istaagaya iyo maciishadii iyo isku socodkii gaadiidka badda taasina waxa ay Trump ku khasbaysaa ayaa la leeyahay in uu markaas dib uu isugu noqdo oo xisaabta isku dhufsaday ee khaldan ee sharciga ka aradan inuu markaa dib isugu noqdo oo arrintan wax laga qabto. dhinaca kalena waxaa leeyahay waxaaba suurtagala inuu furka tuuro oo wuxuu burburin karo burburiyo asagoo ku haminaya Iiraan waa isdhiibaysaa. Iiraanna waxay tiri qaamuuskeena isdhiibitaanba kuma jiro. waayahay dhanka kale waxaa warbixintaas lagu sheegay aljaziira ay tabisay in xuutiyiintu maana Iiraan laftigeedu in ay markaas aysan doonaynin inay isticmaasho markaa wax walba oo ay markaas iyadu ay warbixinta dalkan kaga muuqata 30 iyo dhowrka mirar ka hor soo baxday in markaas inaysan Iiraan doonaynin wax walba inay haatan isticmaasho oo marka qura ay waxeedoo dhan dabka saarata Iiraan ma rabto. habba waxay eegaysaa xaaladdu meeshay marayso iyo sida ay wax u socdaan ayay habba Iiraan eegaysaa halkaa ayayna ka shidaal qaadanaysaa oo ma doonayso markaa inay mar qura ay waxeeda oo dhan hal mar wada isticmaasho. oo haddaad eegtid waa arrin istiraatiijiyad ah oo Iiraan waxyaalo fara badan markaas ay eegayso.
وايا وحاجة وأركسان كويت رانويجي iyo waliba destruction ay Iran radar systemkii ay ku samaysay fuel storage facility runways in Abu Dhabi United Arab Emirates iyo Kuwait radar systems iyo waxaanu bartilmaamistay leeyihiin fuel storage meelahaas shidaalka lagu kaydiyo ayaynu bartilmaameysanay ayay leeyihiin facility iyo runway Kuwait iyo Imaaraadka weeye waaniga hadda idin tusiyey sawir ayagoo markaa gubanaya dhimashada dowladda dalka Iran shacabkeeda ayaa la sheegay 1300 inay gaadhay waxaana leeyahay dadkan waa shacab iyo askar isku jira laakiin Iran waxay leedahay waa wada askar si kastaba ha ahaatee total numberka la dilay 1300 ayuu haatan taagan yahay dhaawacuna gabi ahaanba waa farabeelay waayahay maxay kaloo Al Jazeera qortay saacadan oo muhiimad leh oo aynu jecelnahay daawadayaal haddaba inaan idin la wadaagno sida arkaysaan Imaaraadka duqeyn ayaa hadda ku socota oo waxa ay ka hortagayaan markaas gantaalada dowladda dalka Iran dowladda dalka Mareykanka ayaa iyaduna dhankeeda ugaga digtay dadka warning siisay citizenskeeda to stay vigilant inay taxadaraan digtoonaadaan xilliga markaas ay safrayaan oo Mareykanka wadamada Carabeed ayaa laga yaacaya waxay dadku aadayaan meelihii ay ka yimaadeen iyo wadamadii ay markaa ka yimaadeen xaaladuna halkaas ayay maraysaa xilligan xaatana ee daawadayaal aynu barnaamijkan idinla wadaagayno waayahay haddaba haddaynu eegno haddaba wararka kale ee kasoo baxaya caalamka ee khiyaarta sharaftii karaamada leh halkan jiraanidan Israa'iil kasoo baxda markaas la yiraahdo Herald ayaa iyada laftigeedu qortay maqaalkan hadda halkan idinkaga muuqda qalbii soo gelino khiyaaray waayahay waraawi haddii aad halkan eegtid Abu Dhabi ayaa waxaa laga maqlay qaraxyo waaweyn sida dadka markhaatiga ee goobjooga ah markaas ay sheegeen sidoo kale meesha ka koraysa dad eegtid sidoo kalena Iran ayaa laftigeeda waxa ku socda duqeymo isdaba joog ah oo markaas halkaas ay ka wadaan Xisbullah oo diyaaradaha droniska ku soo weerartay ayaa la sheegay diyaaradaas inay ku soo dhacday waqooyiga Israa'iil ay ku soo dhacday isbitaal Bakin isbitaal ay ku soo dhacday wax casualty oo habeeraatee la soo tabiyana aysan jirin maalintii 8aad iyo dagaalka ayaynu ku jirnaa haddii aad meesha kaartoonka hoostiisa aad eegtid waxaad arkaysaan dadka Israa'iiliyiinta oo markaa dhulka ku dhuumaalaysanaya duqeynta ku socota Iran awgeed duqeynta ku socota Israa'iil meel kasta wiishka ayaa ka qeylinaya ama seeriga waxaa tiraadidba dhinaca kale haddaad eegtid waxa ay kood garaynayaan Scott Bessent ninka la yiraahdo ee wasiirka maaliyadda dowladda dalka Mareykanka oo warbixinta Mareykanka xalay waraysi siiyay waxa uu sheegay duqeymihii ugu badnaa abid inay Iran ay ku soo socdaan ayuu sheegay habeenkii xalay ahaa tagay duqeymahaasu waxaa la isweydiinayaa xalayda waraysigu bixiyey maxalidaasu ka hadlayay mise waxa uu ka hadlayaa saacadaha soo socda oo caawa ah wararka soo socda miyuu ka hadlaya ayaa la isweydiinayaa waa hagaag khiyaaray soo dhawaada haddaba meel kastoo dunida ka joogtaan sharaf iyo karaama ay noo tahay waqtigiina qaaliga aan siisay applicationka lacag dirista degdega ah ee MyRemit muddaan sugayo maskaxda ku hayay maantaan helay meeshii aan rabay iyo ma dhaafaan lacagta lagu diro waana nidaamka lacag dirista degdega ah ee MyRemit waa nidaam casri ah oo aad lacagaha uga diri karto dhammaan gobollada Soomaaliya Ethiopia Kenya iyo bangiyada Soomaaliya bangiyada Ethiopia mobilada EFC Sahal Sad Maycash iyo dhammaan nidaamyada mobilka ee lacagta lagu diro haddaba soo degso MyRemit app xawaalada MyRemit app ku dooro ammaano degdegsiimo iyo lacag diris goor kasta iyo goob walba MyRemit app waxaad isticmaal shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Imara Luxury Homes qasri aad u dheer iyo dhismo wada muraayada shirkad noo dhisayso dhaqso kuugu diyaarin waa Imara Luxury Homes Imara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madrasada quraanka supermarket cafeteria ceelbiyood wiish u gaar ah kaamirooyinka ammaanka baarkinka gawaarida goobo carruurtu ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar waa mashruuca Imara Heights waxaana laga hirgeliyey magaalada